dowladda Kenya ayaa sheegtay inaanay aqbali doonin haddii si ka dhan ah ama lid ku ah dalkeeda ay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunku ICJ ay u xukmiso kiiska badda Soomaaliya taasi oo ay qirtay in ay u muuqato inay dhici doonto. maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa warsaxaafadeed ay daraad soo saartay waxay ku xaqiijisay inay ku dhawaaqi doonto xukunka kiiska muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. xukunkaasi oo ay soo saari doonto 12 bisha Oktoobar 2021. hase yeeshee xukuumadda Nairobi ayaa wacad ku martay inaanay aqbali doonin waxay ugu yeedhay hanaan sharci darro ah oo maxkamadda ay u martay kiiskan sida ay ku doodeen. waxaan ku soconnaa mala ah in xukunku uu noqon doono mid naga soo horjeeda habka ay maxkamaddu u dhaqantay markii ay la macaamilaysay Kenya oo ay ku jirto inay diiday codsiyo dhowr ah oo qiil lahaa waa wax noo tilmaamaya arrin aan wanaagsanayn. waxaa sidaas wargeyska Daily Nation u sheegay sarkaal Kenyan ah oo shalay ka hadlay arrinta kiiska badda Soomaaliya ee ay muranka gelisay dowladda Kenya. sarkaalka ayaa intaasi ku daray tallaabooyin dhowr ah ayaa la qaaday amni ahaan. arrintan waa mid leh cawaaqib amniga qaranka ah. dalka Kenya waa inuu xaqiijiyaa amniga iyo badqabka shacabkiisa iyo guud ahaan hantidiisa. sarkaalkan ayaa sheegay in xataa Kenya aanay aqbali doonin haddii maxkamaddu ay go'aamiso in dhulka la isku hayo loo kala qaybiyo labada dhinac sababtoo ah buu yidhi waxay ka dhigan tahay in dhul ka mid ah Kenya la dhiibay. sidaas darteed marnaba ma aqbali doono arrintaasi. Kenya ayaa ku doodaysa in maxkamaddu ay ula dhaqantay si cadaalad darro ah oo ay ku jiraan codsiyo badan oo laga diiday sida in garsoore Cabdulqawi Axmed Yuusuf oo Soomaali ah uu iska casiro maxkamadda oo uu ka baxo xubinka noqoshada 15 xubnood ee garsoorka ah ee xukunka kiiskan qaadiyay oo ah 15 xubnood ee garsoorka maxkamadda cadaaladda adduunka. arrintaasi oo ay maxkamaddu gaashaanka ku dhufatay iyada oo sheegtay in dhalashada iyo shaqada uu ka hayo Cabdulqawi maxkamaddu aanay shaqo isku lahayn. Cabdulqawi ayaa ahaa madaxweynaha maxkamadda ICJ tan iyo sanadkii 2018 waxaana bishii February ee sanadkan 2021 bedeshay garsoore John Dano oo ah garsoore caalami ah oo Mareykan ah oo ah waqtigan madaxweynaha maxkamadda caalamiga ah. dowladda Soomaaliya ayaa dacwadda badda gudbisay sanadkii 2014 waana kiiska badda Soomaaliya ee ay muranka gelisay Kenya. xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu ahaa markii ugu horeysay ee ay xukuumadda Soomaaliya dacwad ka gudbisay kiiska badda ee ay muranka gelinayso Kenya. Kenya waxay isku dayday in ay wada xaajood ku qaadato qayb ka mid ah badda. sidaas waxaa tidhi xukuumaddii waqtigaasi ee Xasan Sheekh Maxamuud. kiiska muranka badda Soomaaliyeed ayaa dhowr jeer dib loo dhigay dhageysigeeda iyada oo markii dambe ay maxkamaddu dhageysigeeda guda gashay si tartiib ahna ay u dhamaysay iyada oo ay Kenya fadhiyadii ugu dambeeyay ka baaqsatay inay timaado. balse maxkamadda caalamiga ah ee ICJ uma aanay joojin maqnaanshaha Kenya ee sidii ay kiiska ku waday kuna gabagabaysay ilaa imika la soo gaaray in ay ku dhawaaqdo waqtiga ay xukunkeeda rasmiga ah ee kama dambaysta ah ku dhawaaqi doonto oo ay naga xigto wax ka yar 3 toddobaad. Kenya ayaa la fahamsan yahay in sheegashadeedu baddu ay tahay mid aan sharci ku dhisnayn. maxkamadda ayaa dhageysiga dacwadda soo gabagabaysay 18 bishii March ee sanadkan 2021. Soomaaliya ayaa maxkamadda u gudbisay dood afeedkeeda ugu dambeeyay 15 iyo 16 bishii March. ma dhicin wax dhageysi ahi 17 March kadib markii Kenya ay diiday inay ka qayb gasho dooda afka ah ee maxkamadda ka socotay. maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa sidoo kale 17 bishii March 2021 ku gacan saydhay codsi ka yimid Kenya oo ahaa inay dib ugu soo laabato dhageysiga dacwadda oo ay qaadacday 11 bishaasi sida ay sheegeen guddida matalayay Soomaaliya.